kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena falanqeynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn tartankii ay Qatar kaga adkaatay dalka Mareykanka ee ku saabsanaa qabashada koobka adduunka 2022 oo la sheegay inay Qatar iibsatay iyo xasarad dheeraad ah oo arintaasi ka soo baxday qodobada kale daawadayaal ku maqli doontaan wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda magaaladii xudunta u ahayd iyaduna xanuunkan faafaha daran ee dad marka ah ayaa la sheegay in dadkeedii oo laga qaaday isla markaana loo ogolaaday markii ugu horeysay in magaaladaas laga baxo iyadoo ay warar dheeraad ka hayno midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay inuu talaabo military ku gali doono dalka Liibiya iyo digniin ku saabsan inay taas u heli doonto Haftar oo laga digayo Mareykanka oo sheegay isaguna in uu lacag dheeraad ah oo kale u sii doono dadka markaasi ganacsiyada yaryar haysta iyadoo la sheegayo in dhaqaalihii hore uu ku filaa waayay iyo hay'adda golaha amaanka qaramada midoobay oo shirsan iyo shirkooda oo aan wax khayr laga sugaynin kadib markii dunidu ay ku tilmaantay inay fashilmeen qodobadaas iyo kuwa kale waa 8 bishii Abriil waa maalmo Arbaca waa 2020 waa markale barnaamijkeena falanqeynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda adduunyada oo dhan daawadashana qiimaha leh aan ku bilaabo isla markaana ugu horeysiiyo daawadashana caalamka oo dhan nagala socda ee dalka Australia ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay ka qaadeen cunaqabatayntii gobolka dalkaasi ku yaala leeyahay Alpine Tyro sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi oo sheegay in uu hoos u dhacay xanuunka halkaasi ka jira ayadoo gobolkaasi uu saarnaa xayiraad iyo karantiil gaar oo gobolkaasi gaar loo saaray gobolkan oo markaasi dhaca ama u dhaxeeya dalalka Jarmalka iyo Talyaaniga isla markaana gobol ay leedahay dalka Australia ayaa lagaga dhawaaqay muddo haatan laga joogo 2 bilood ku dhawaad in la saaro xayiraad gaar haatanna ra'iisul wasaaraha dalkaasi Australia ayaa waxa uu sheegay in dalka oo dhan hoos u dhacayo xanuunka isagoo Sebastian Kurz uu sheegayo in marka la gaaro maalinta ciidda la yiraahdo Easterka loo dabaaldegayo la qaadi doono inta badan xayiraad isagoo sidoo kalena ugu baaqay in dhammaan dukaamada aan muhiimka ahayn iyo ganacsiyada kale oo ay isu diyaariyaan inay furaan dalka ayaa waxa ka dilaacay markaas xanuun gaaraya wuxuu soo ritay xanuunka dad gaaraya 12,500 oo qof waxaana haatan ay sheegaysaa dawladda dalkaasi inay talaabooyinka dheeraad ay qaadi doonto ay ku fududeynayso isku socodka dadka iyo arrimaha ku saabsan Australia waa dal ka mid ah dalalka markaasi xanuunku uu aafiyay laakiinse dalka Australia ayaa la sheegay in dhimashadu ay ku yareed marka loo eego dalalka kale ay isku agdhow yihiin sida dalka Talyaaniga iyo dalka Jarmalka si kastaba noqotee ra'iisul wasaare Sebastian waxa uu sheegay in sidoo kale la hubin doono isku socodka dadku inay noqdaan kuwa markaasi badqabka ka markaasi u janjeera ama se badqabkooda laga warhayo gudoomiyaha Tyrol ayaa waxa lagu eedeeyay in uu isagu uusan sameynin dagaal xad baleeri muhiim ah oo la isku hortaagayo xanuunkaasi laakiin haatan waxa uu yiri waxaan u sheegayaa dhammaan bulshada gobolka iyo deegaanka oo dhan in sabab jira oo ah in uu degay soo ridashada xanuunka haatanna 5% wax ka yaray dadku soo dhacayaan marka loo eego tiradii hore ka hadlaya waxaanu ogolaanay haatan inaan dib u furno gobolka isla markaana aanu ka qaadno xayiraadii ayuu yiri Guthena Platter oo ah gudoomiyaha gobolka ee xisbiga Conservative halka nagala socotaan daawadayaal waa wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan oo qodobadii dunida iyo warbixin ugu waaweynaa ee gaanka dunida oo dhan daawadayaasheena qiimaha leh ayadoo daawadayaal adeegyada dalka Qatar in indhaweytaba si xoogan loo daba socdo dhibaatooyin xoogan isaga ay haysteen laguna eedeynayay markii hore in dadka markaas xoogsatada ah ee ka shaqeynaya garoomada loo asteenayo ama loo diyaarinayo ciyaaraha 2022 sanadka marka uu yahay hadii bayd halkaas lagu qaban rabo ayaa haatan waxa soo baxday warbixin kale oo ay soo saareen guddi baaritaano heer sare ah oo Mareykanka uu u saaray arintaasi taasoo baadhisay habkii ay dalka Qatar ay ku guuleysatay sanadkii 2022 ee qabashada koobka iyo waliba tii ay Ruushku ku guuleysteen 2018 in weydaartay guddigan ayaa waxa hogaaminayay markaasi dacwad ogaha guud ee dalka Mareykanka ayaga oo soo saaray warbixin 70 bog ka kooban waxayna sheegeen in guusha uu Qatar ay ka gaadhay kolka ay noqoto inay marti geliso koobkaasi 2022 ama sanadka 2022 ay ahayd khiyaano iyo laaluush bixin ay siiyeen qaar kamid ah dadka codadka muhiimka leh warbixinta waxa lagu xaqiijiyay in goobta ay ka dhacday wax loogu yeeray musuqmaasuq ugu xumaa iyo lacag jeeb isugu shubis iyo af isku buuxis taasoo markaasi laga shaqeynayay ayaa la yiri muddadii ka horeysay 10 sanadood ee arinta go'aankeeda laga gaaray waxa la yiri dadka la siiyay dhaqaalaha lixaad kale waxa kamid ah Nicholas Leos oo ahaa madaxweynihii hore ee ciyaaraha koonfurta America South American Football Association loo yaqaano iyo CONPAL
oo asaguna ahaa madaxii guud ee ciyaaraha reer Brazil iyo Ricardo Teixeira oo asaguna markaasi ugu sareeyay markaasi ciyaarihii dalka Brazil waxaa la yidhi dhammaantood waxaa la siiyey lacag xad dhaaf ah waxaana laga bedeshay codkooda sidaas waxaa lagu soo saaray warbixinta dawaadan ka kooban oo ay guddigu soo saareen guddigu waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen in dalka Qatar iyo dalkaasi Russia labaduba ay lacagta bixiyeen laakiin habka ay Qatar lacagta u bixisay uu ahaa mid la yaab leh taasoo ah lacagta ay khasirtay oo ahaa mid xad dhaaf ah iyo sidoo kale xataa in aysan kuba guulaysan kareynin arrimaha martigelinta kolka ay timaado haddaba arrintan ayaa waxaa la sheegay in ay lafdhabar u tahay khilaafka dalalka Carbeed ee ayagu ka masayray arrinta Qatar ay ka guuleysatay kuwaasoo ayagu dhowr jeer ku baaqay in dalka Qatar uusan awood u lahayn oo ku martigeliyo koobkaasi daraadeedna gobolka dhan loo qaybiyo guushuna aysan ahayn guul Qatar kaligeed gaar u ah ee ahayd mid khaliijka oo dhan khusaysa oo ay tahay in dalalka khaliijka haday yihiin Saudi Arabia iyo haday yihiin dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta labada wax laga siiyo taas ayaana waxa ay hordhac u noqotay kadib markii toddobaadkan ay ku dhawaaqday dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta ayaduna in ay shaqaalaysiisay ama ay qoratay dad uu kamid yahay xubno xildhibaano hore uga jiray dalka Britain si ay baaritaano dheeraad ah u sameeyaan oo arintaasi ku saabsan in dib looga celiyo Qatar martigelinta koobka 2022 haatan qaraarka ay soo saareen Mareykanku oo ka cadeysan sida dalka yar ee Qatar la yiraahdo oo ah dal aad u dad yar isla markaana Mareykanka aan u dhigmin ugu guuleystay arintaasi taasoo Mareykankuna ay aad uga cadeysnaayeen ugu dambeyntiisa hadda waxay sheegaysaa dawladda isku tagga Imaaraadka Carabtu in waxyaalaha ay Qatar ku haysato haatan ay kala cadaadeen waxayna sheegtay in hadeer ololaha ugu buuxa ama ugu weyn loo gali doono sidii Qatar looga celi lahaa arrintaas markaas gacanta loo galiyay oo dib loogu soo bilaabi lahaa sheekada gadaal loogu dhigi lahaa laakiin lama hubo in FIFA ay baari doonto arrinta kulankan koobka adduunka la isugu yimaado waa kulanka ugu weyn ee dhanka ciyaaraha ah ee abid la qabto caalamka dhan ka dhaca halka kala socotaan daawadayaal ma wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan ayaan ka gaarnay oo dhan daawadashana qiimaha leh aan ku noqdo wararka waaweyn iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda daawadashana qiimaha leh ninka asagana ahaa kusimihii xogayaha gaarka ahaa ee arrimaha ciidanka badda ee dalka Mareykanka ee ay qabteen ninka hogaamiya mid kamid ah maraakiibta ugu halista badan dunida uguna qalabaysan oo la yiraahdo oo loo jiray Colonel Thomas Modly ayaa iscasilay kadib markii la sheegay inuu ka garhelay ninkii warqadda qoray ee isaguna Captain Pratt loo jiray waatii markabka xoog laga soo rogay kadib markii la sheegay oo lagu amray inuu ka soo dego kadib markii la sheegay inuu warqad u qoray ay warbaahintu halabsatay taasoo markii dambana la sheegay in macluumaadka ciidanka iyo badqabka ciidanka ugu markaasi khibradda badan dhinaca badda Mareykanka isla markaana saaran mid kamid ah maraakiibta loogu ilaalada badan yahay hubka culus ee nuclear-ka kuwa wax lagu liishaamo diyaaradaha iyaguna uu tuurta ku rito uu saaran yahay kana mid yahay maraakiibta ugu waaweyn ee dunida ee loo yaqaan USS Theodore Roosevelt haatan waxaa la sheegay in Mr. Modly uu garaystay hadalkii uu ka sheegay Captain Pratt in uu ahaa mid aad iyo aad aflagaado ah codka markaas uu duubay Colonel Nicholas Bradley Modly ayaa waxaa la sheegay in laga dheeha kareeyay caro aad u baahsan oo warqadda la qoray ee cabashada ah uu kaga jawaabayo ninka isaga haatan iscasilay waxa uu yiri waxa aad qortay ama warqadda aad qortay waxay ahayd mid aad u khatar badan waad ogtahay adduunka aynu ku noolahay maanta warbaahintu halka ay joogto iyo sida aad ugu dhex duubtay ayuu ama ugu dhex qortay warqadda dhalinyaro dhexdeeda oo military saadaradeed waa laba maado mid inaad aad iyo aad jaahil u tahay iyo inaad aad iyo aad doqon u tahay labada mid weeye ayaa la yiri taas ayaana codkiisa laga dheeha karay waxaa la sheegay inuu isagu iskiis ku casilay sida uu sheegayo kusimaha xogayaha difaaca dalka Mareykanka ee waaxda Pentagon maamula Nicholas Mark Esper ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo iscasilaada Modly isla markaana isagu uusan ku khasbin Mark Esper wuxuu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump lagala tashaday qofka lagu bedelayo kusimaha waaxda difaaca ee badda ciidanka oo laguna bedelay ninka la yiraahdo Jim McPherson kaasoo noqon doona si kumeel gaadhnimo haatan colonelkii laga soo rogay markabka markaas halista badan ee loo jiray Captain Pratt Cruiser ayaa la sheegay in xanuunkii uu ka cabanayay isla markaana uu digniinta ka soo saaray ee uu lahaa 5,000 ee askari ee goobta saaran khatar bay ugu jiraan ayaa la sheegay in isaga laftiisa laga helay oo uu ka soo ifbaxay waxaana la sheegay in dad badan oo Mareykan ayaa waxay qoreen qaraar ay barta online-ka ku daabaceen taasi ay ku dalbanayeen in Modly iscasilo Bradna la soo celiyo ayagoo sheegaya in ninkaasi waxa uu sameeyay ahayd inuu badbaadinayay da'yarta Mareykanka ilaaliya ee ciidanka ba yiraahdeen
halkaan nagala socotaan waa wararkii wacalaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawadayaal ama dunida wararkii ugu dambeeyay warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ayadoo aad isku weydiinayaan waalidiinta ku dhaqan dunida oo dhan gaar ahaan kuwa Mareykanka ku dhaqan xilliga ay caruurahoodu iskuulada ku noqonayaan isla markaana caruurihii ay guryaha dhex fadhiyaan ayaa arintaasi waxaa hilaadiyay khabiirka guud ee dalka Mareykanka ninka ku takhasusay xanuunada faafa ee Dr. Anthony Fauci. Dr. Fauci ayaa arintaasi waxa uu kala dhigay si markaasi ku saabsan dhinaca cilmiga uu leeyahay xanuunada faafa xilliga laga soo reysan karayo iyo sida ay noqon karayaan. Wuxuu hadalkiisa ku bilaabay in uusan hilaadi karin kolka ay noqoto xilliga rasmiga ah ee caruurta iskuulada ku noqon karaan, laakiin wuxuu yiri waxa aan kaliya oo rabaa in aan idin sheego waxa weeye waa inaynu kala hubsanaa marxaladda waa marka koobaadi waa inaynu hubsanaa ayuu yiri dadka xanuunku soo ritay oo dhan inaynu daryeelay inaynu yareynay xanuunka socodkiisa iyo xawligan faraha badan oo ku soconayo in aynu helay dawooyin ku saabsan oo dadka marka uu soo rito balxun lagu badbaadi karo ama nafta ama lagula tacaali karo. inta markaynu isla ogaano waxa inoo soo baxaysa ayuu yiri heerka xanuunkan uu faafi karo taas ayaa ka dhala doonta ayuu yiri in ay waalidiintu caruurtooda iskuulka dib ugu diraan, laakiin marka ay noqoto ayuu yiri caruurta sanadkan inta ka hadhay sanad dugsiyeedka laga hadlaya inta ka hadhay ma la celinaya oo ma ku noqonayaan iskuulkii ma ku noqonayaan. Taasi wuxuu yiri waa su'aal runtii aad iyo aad u weyn xataa gabadhayda oo macalimada ayaa taay weydiisay oo iyaduna macalimiinta iskuulada dhiga ah waxaana u sheegay in marka aan ka eego dhinaca ayuu yiri wanaagsan aan arinta ka eego waa macquul in laga yaabo in sanad dugsiyeedkan hadeerto wixii ka dambeeya ay caruurta ku noqdaan ayuu yiri macnaha sanad dugsiyeedka dambe ayuu sheegaya sanad dugsiyeedkan uu saa ku dhamaado ayuu leeyahay wax oo isku soo aadaan sida muuqata ayuu leeyahay markaasi inta ka hadhay markaasi xidhitaanka sanad dugsiyeedka bisha May dhamaadkeeda xidhma dalka Mareykanka iyo June inta u dhaxaysa iyo wuxuu leeyahay markaasi ku noqoshada dambe sanad dugsiyeedka dambe ee bilaha August iyo September dib u bilaabanaya. halkaan nagala socotaan waa wararkii wacalaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawadayaal qaybta labaad ee wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda.